waa cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku jira garoonka kubadda cagta istaadiga Muqdisho kuwaas oo loo diyaarinayo inay qayb ka noqdaan sugidda ammaanka magaalada Muqdisho waxaana maanta booqasho ku saabsan isbaraarujin iyo muhiimadda uu leeyahay qaranka ugu tagay Sheekh Maxamed Ibrahim Kiyaawi iyo Sheekh Bashiir Axmed Salaad warsow diyaar uma yihiin inaad walaalihiin u adeegtaan soo diyaar uma yihiin walaalihiin inaad u adeegtaan waxa kaloo ku helinayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo saraakiisha hogaanada ciidanka booliska gudoomiyaha majmaca culimada Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ciidanka booliska ku dhiirigeliyay shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ku baraarujiyay in gabdhaha ku jira ciidanka booliska loo baahan yahay in si gaar ah loola tacaamulo maadaama ay diinta islaamku ay raali ka ahayn in ragga iyo dumarka isku milmaan waxaan kaloo rajaynayaa ayadana maaragtay saas oo kale in maaragtay gabdhaha booliska xurmadooda in la ilaaliyo iyo wanaagooda iyo muuqaalkooda oo maaragtay si gaar ah maxaan ku oraa iyo muuqaal gaar ah iyo asturnaan gaar inay la yimaadaan baa loo baahan yahay oo maaragtay xataa haddii si gaar ah wax loo bari karo ayagoo xurmadooda la waardiyeynaya bay ku fiican tahay oo aan maaragtay la isku dhex jirin bay aad iyo aad u qurxoon tahay diini ahaan iyo axkaam ahaan weeye waxaa kaloo waxyaabaha looga hadlay ka mid ahaa in dhaqanka iyo ku xirnaanshaha diinta ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu sugi karo amniga magaalada Sheekh Maxamed Ibrahim Kiyaawi oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kula dardaarmay in ciidanka booliska ay ku shaqeeyaan ugu horeyn qaranka kaasoo qof walba oo Soomaali ah ay waajib ku tahay inuu ku shaqeeyo waxa kaloo kula dardaarmay in ay ilaaliyaan amaanada iyo balantii ay ku qaadeen ku shaqeynta dalka danta iyo diintaba adiga waxa tahay qaran waxa aad nabadan ku fadhidid waa qaran ilmahaagi waxay harsanayaan waa qaranka har weyn buu leeyahay waxa ina wada jamcinayo waa qaran wada jirkeena ilaalinayo waa qaran wax xaq alle iyo xaq bani aadam aan qiimi ku leenahay waa qaran wax cizigeena sharafkeena ilaalinayo yaa ilaalinaya eeg diinta ugu horeysa wax qaranka noo ilaaliya diinta ugu horeyso Allah dhahaya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu war ha kala tagina xarga ilaahi qabsada diinta ilaahi wada qabsada ha kala tagina ha ku kala tagina dhulkiina ha ku kala tagina diintiina hatta qabiilkiina ha ku kala tagina Cabduqaadir Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho